kalfadhigii afraad kulankiisa sagaalaad oo xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kulanka waxa goobjoog ah madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ajandaha kulanka ayaa ahaa dib u eegista xeer hoosaadka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xubno kala duwan oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen xeer hoosaadka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee horiya golaha shacabka sharciyad badan oo dalkan asu baahan yahay ayaan waqti ku lumiyohayna sida xeer hoosaadkeena hore wax looga bedelay xildhibaanadii hore iyo kuwa hadda joogaba waa wada og yihiin waxay ku qoran tahay xeer hoosaadka ruuxiisa ay ku qoran tahay inta xeer hoosaadkii hore la soo qaado qodobkan 44 waxaan ku kordhinaynaa siiqada noocaas ah liira ayadoo qodobka uu meesha joogo haddii ay hayaan qodobo dheeri hadda 86 uu ku eg yahay muxuu ahay xeer hoosaadkii hore hadday qodobo dheeri oo 100 iyo something inay sii gaarsiiyaan ay rabaan waa fiican tahay waa lagu kordhinayaa iyagana gooni intay u soo qoraan hanoo keenaano hanoo akhriyaan waa hindis sharciyeed la curinayo waa markaas ma guddiga arrimaha dibadda ma kan gudaha ma amniga ma difaaca ma maaliyadda ma kan xeer hoosaadka iyadana ma qeexna marka waxaan jeclaan lahaa caqabado fara badan iyo waxaad moodaa waxyaabo badanaaba aanan sidaa u muuqanaynin oo yara hoos ma artay ka gujis ah inay marmarka qaar caqabad timaado golaha shacabka iyo aqalka sare inay isku maandhaafaan gartoodana badanaaba uu galo ama madaxweynaha ama wixii markaasi kullayba loo garto laakiin aanan xeer inta la isku qabsado aanan la dhihin awoodiina waa inta awoodoodana waa inta mudnaanta fadhiyada marka fadhiyada la fadhiyo ama dibadda ha ahaato ama munaasabadaha kale xildhibaanadu sida loo kala fariisanayo protocolkaas oo xeer hoosaadyada baarlamaano badan aan ku arkay in lagu soo daro maalinka dhaweetaan taas gud ay soo jeediyay waxaan u gudbinayaa insha Allah guddigaan u gudbinayaa xildhibaan Cabdi Shire Jaamac iyo xildhibaan Carawi oo qayb ka ah xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen dagaallo ka soconaya deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan walaac iyo ku taalo gooniya igu haya in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya aysan ka jawaabin qayladhaantii ka timid shacabka Soomaaliyeed ee iskood isku abaabulay ee deegaanada Aadan Yabaal iyo Cadale ee ka tirsan deegaanka Hirshabeelle ee xadkana la leh galmudug oo aan micnaha xildhibaan u ahay ee halkan aan ku fadhiyo shacabkaas oo iska difaacay cadawgii ugu soo gambaday diintooda toddobaadyo ka hor waxaan baraha bulshada ka daawanay isdifaac maxalli ah oo la baxay oo la magac baxay Macawisley kaasoo markii wax ka difaaca shabaab ay waayeen iskood isku difaaceen waxa ayaan daraa in xukuumadda shanta Soomaaliyeed looga dabaaldegay waxay ka difaacada daaya aysan saanad iyo gurmad u dirin dadka iyaga waxa kale oo ayaan daraa in maamul goboleedyada ay noqdeen isbaaro ku horgo'an nolosha iyo horumarka shacabka Soomaaliyeed dhibaato loo geystay oo dareemi kartay dhibaato nafeed mid maaleed mid mataqaanaa haween barnaamijyada loogu geystay dadkaasi oo cidna abaabulin ayaga dhibaatadaas loo geystay awgood u abaabulmay siday ula diriraan kooxaha nabadiidka oo caadaystay inay hasuuqaan shacabka iyo barnaamijyada sidaad la socotaan shacabkaasi is abaabulay ee hubeysan ee raba inay iska ciriyaan cadawga ku soo duulo guryahooda gubo isla naagahoodii ama dumarkii ay qabeen kufsaday gabdhihii yareeraa kufsadeen sidoo kalena dhalinyaradii amba ilmihii caruurtii ka kaxaysanayaan ku qasbayaan inay dagaalkii ay geliyaan taa bedelkeed waxay door bideen inay nolol xayaato leh ku noolaadaan iyo inay mataqaanaa ku shahiidaan Xasan Kaahiye Som News TV Muqdisho.